waxaa ismaandhaaf xoogan laga dareemayaa fanaaniinta kale ah Sultan Seraar iyo Sharma Boy kuwa oo showyo kala gaargaar ah ku qabanaya gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. sida hore loo iclaamiyey showyadan ayaa loo madalsan yahay in la qabto maalmaha xurriyadda sida 26 Juun ilaa 1 bisha Luulyo ee sanadkan 2022. hase haatee Sultan Seraar oo isna show ku qabanaya halkaasi ama bandhig weyn la filayo in uu ku qabto gudaha Mareykanka ayaa mid ka gedisan waxaa qabanaya fanaanka caanbaxay ee raabiistaha ee loo yaqaano Sharma Boy, kaasi oo dadku ay su'aalo kala duwan ama su'aalo ay qaarkood ay shaki geliyeen imaatinkiisa waddanka Mareykanka ama qaabka uu waddankaasi ku tagay iyo sida ay ku suura gashay. haddii aynu waxoogaa faahfaahin ama sharaxaad ka bixino sida ay ugu suura gashay ama loo xushay Sharma Boy halkaasi Mareykanka, golaha amaba golayaasha u qaabilsan arrimaha kiniisadaha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo Greater Minneapolis Council of Churches iyo sidoo kale West Bank Athletic Club waa hay-ad u qaabilsan arrimaha sportiska oo Mareykanka ka dhisan gaar ahaan Minnesota, ayaa waxaa u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan fiisaha gaarka ee loo yaqaano 0-1 visa. haddaba viisahan waxa uu u gaar yahay dadka hibooyinka kala gedsan leh, gaar ahaan ha noqoto dhanka fanka iyo waxyaabaha kale. waxaana afka qalaad lagu yiraahdaa visa for individuals with extraordinary ability or achievement for Somalia based musician. haddaba fiisahan waxa uu u qaabilsan yahay in dadyooga kala gedsan ee dunida dacaladeeda ku sugan in ay usoo dacwoon karaan ama ay Mareykanka qaab markaasi fiisa ay ku keeni karaan dadkaasi dadyooga ka shaqeeya qaar ka mid a Mareykanka, ha noqoto hay-ad ama shirkad ama company ama urur. siba haddii ururkaasi uu qabanayo bandhig ama xaflad ama waxyaabo la mid ah. waana siyaabaha Sharma Boy ay ugu suura gashay in loo soo xusho bandhigyada kala gedsan ee lagu qabanayo Mareykanka, maadaama fanaankan uu yahay fanaan raabiista ah soo shaacbaxay muddooyinka ugu dambeeyey, isla markaana aad moodo in heese kala duwan uu ka qaaday. waxa uu ruuxay masraxyada heesaha gaar ahaan bariga Afrika. waxa uu ku sugnaa muddo waddankaasi Zimbabwe, fanaaniin kala duwan oo ajnabi ayuu hees la soo qaaday. fanaanka weyn ee waddanka Canada u dhashay ee Keenan ay sidoo kale markaasi dhowr heesood ay isla soo qaadeen, waxaana bartiisa YouTube-ka inta badan uu gaaray 130 milyan oo views muddadii 2 sano ee ugu dambeysay ee fanka uu ku jiray ama uu kasoo muuqanaya. waxaadna moodaa in arrintan ay tahay waxyaabaha ugu weyn ee caalamka soo jiitay. haddaba Sharma Boy waxa suuragal ah in Mareykanka uu qaab degenaanshaha uu kusii joogi karo. fiisahan gaarkana waxa uu qofka u ogolaanayaa muddo 3 sano in uu Mareykanka ku sugnaado, haddii ay noqoto arrimo shaqo iyo waxyaabo kalena uu ka qayb qaadan karo, maadaama xuquuqdiisu ay tahay mid gaar ah oo fiisahaasi uu kafagareynayo. haddaba Sharma Boy oo soo shacbaxay muddooyinka ugu dambeeyey ayaan ugu hambalyeynaynaa hibadaasi alle uu siiyey iyo sidoo kale horumarka uu ka gaaray fankiisa iyo dadaalka uu ku bixiyey iyo waqtiga uu la qaadanayo qaar ka mid ah bulshada iyo bahda fanka ee ku sugan Mareykanka. haddaba ururka dhanka dhalinyarada haddii aynu eegno loo yaqaano WBAC waxa uu qabtaa munaasabad ama waxa loo yaqaano festival oo ah fantasiyo amaba markaasi xaflado kala gedsan oo ugu talagalay inuu ku xuso arrimaha dhaqanka, isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada, diimaha kala duwan iyo waxyaabo caynkaas oo kale ah. waxaan la qabanayaa ciyaaro kala duwan oo dhacayo 21 bishan Juun ilaa 24 bishan Juun. waxaa sidoo kale jira bandhigyo lagu qabanayo gudaha Mareykanka Minneapolis oo inta badan ay ka dhacayaan halkaasi. waxaa jira seminar halkaasi ka qabsoomaya oo Sharma Boy isna ujeedka ugu weyn ee imaatinkiisa ay qayb ka tahay, isla markaana la filayo in dhalinyarada lagu wacyigeliyo arrimo dhowr oo ku saabsan isdhexgalka, horumarinta hibooyinka ama talentka, xoojinta dhaqanka, wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada oo kor loo qaadayo. haddaba dad badan ayaa siyaabo kala duwan ooga hadlay qaabka uu Sharma Boy Mareykanka uu ku gaaray iyo sida ay ugu suura gashay iyo dadka iyagu usoo xushay. haddaba waxaynu ognahay fanaankan inuu kasoo shaacbaxay horaantii sanadii 2019 magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. waa fanaan, waa qoraa dhanka heesaha, sidoo kale waxa uu ku fiican yahay dhanka dansiga. haddaba gobolka Horn of Africa, geeska Africa loo yaqaano, ayuu kasoo caanbaxay. fankiisana waxa uu noqday mid markaasi bulaalo, isla markaana
dunida dacaladeeda gaara. fanaankan ayaa leeyahay maadaama uu kusoo kowsaday xaalad aada u cakiran, isqabqabsi, degnaasho la-aan ama xasilooni daro dhanka siyaasadda gudaha soomaaliya, arrimaha amni iyo dhibaatooyin badan, haddana waxa uu isku dayay inuu madadaaliyo dhalinyaradana uu markaasi ku madadaaliyo heesaha, ka shaqeeyo sidii uu u diyaarin lahaa amaba uu soo qaadi lahaa heeso ku saabsan arrimaha ammaanka, dhiirigelinaya nabadda, jacaylka iyo isdhexgalka. fanaankan waxaa leeyahay isaguna waxaynu ognahay in dalkaasi jabuuti isagii sidoo kale maslax madeeye inay la kulmeen madaxweynaha wadankaasi jabuuti ismaaciil cumar gele. waxaa lagu abaalmariyey abaalmarin markaasi gaar ah oo madaxweynahaasi uu siiyey, taasi oo la xiriirtay hibadiisa faneed, heesta uu qaaday madaxweynaha jabuuti iyo sida uu uga shaqeynayo arrimaha dhalinyarada, isdhexgalka, horumarinta fanka soomaaliyeed iyo sidoo kale ka shaqeynta amniga iyo nabadda iyo dhiirigelinta dhalinyarada. si kastaba ahaatee muddooyinka ugu dambeeyay waxaad moodaa in fursadahan oo kale ay ahayeen kuwo markaasi aada gabaabsi u ah marka la eego xaaladii ka jirtay ee magaalada muqdisho, dhibaatooyinkii markaasi soo maray dalkeena hooye ee soomaaliya. laakiin bartamihii sanadii 2001 ilaa 2003 xilligaasi uu soo shacbaxay aaladda youtube-ka aadka loo isticmaalo, waxaa aada loo arkayay fanaaniin aada u tiro badan oo iyagu heesahooda qaab markaasi digital ah oo casriyeysan kugu soo bandhigaya baraha bulshada. youtube-ka waxa uu noqday aalad markaasi u fududeyso fanaaniinta soomaaliyeed in ay kusoo gudbiyaan hibadooda faneed. tiyaatar ayaa jira, hase yeeshee haddana waxaa jira dhibaatooyin iyo xasilooni dare ka jirta waddanka. inta badanna fanaaniinta uma suuragelin in ay helaan madal ama goob ay iyagu markaasi ku xoojiyaan fankooda. hase ahaatee haddana fanaankan waxaa leeyahay markii uu soo shacbaxay durbaba heestiisii ugu horreysay ee dheesha dheela waxay noqotay hees markaasi aada kor ugu kacday, waxaana ay soo jiidatay dad gaaraya 12 milyan, kuwaasi oo heestaasi aada u daawday. waxaana leeyahay muddada tani intii uu ku jiray fanka horaantii sanadii 2000 ama dabiiqadii sanadii 2019 oo uu soo galay barta youtube-ka, waxaa u suura gashay isku dar cadad tiro dad gaaraya 130 milyan, kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga falceliyay heesihiisa. waxaana uu noqday fanaan si aada u qabsaday masraxyada faneed, isla markaana gilgilay qeybaha kala duwan ee fanka baa leeyahay. haddaba iminka maadaama showyadaasi ay dhacayaan, suldan seeraan ayaa isna loo ballansan yahay in show weyn uu ku qabto gudaha maraykanka, gaar ahaan minneapolis, halkaasi oo la filayo in maalmahan ama toddobaadkan xorriyadda in uu kala qeyb qaato bulshada soomaaliyeed, jaaliyadda madaxafka weyn ee maraykanka ee gobolkaasi minnesota, in uu kusoo bandhigo heeso kala duwan munaasabadan 1 luulyo awgeed iyo sidoo kale 26 bisha juun. waana waxoogaa marka la eego qaabka ay isugu soo aadeen munaasabadahan, waxaad moodaa inay tahay arrin cajiib ah. dad badanna ay su-aalo gelinayaan, qaarkoodna ay leeyihiin suldaanow showgaaga dib u dhigo, halka ay jiraan dad kale oo uu ku dhiirigelinayo sharmaboy in uu suldaan seeraar awgiis showgiisa uu u baajiyo ama bandhiga uu doonaya halkaasi inuu ku qabto, in waxoogaa hakad uu geliyo si ummadda intooda badan ay uga qeyb qaataan showyada halkaasi ka dhacaya.